noloshan adduunyo ee aan joogno waxa uu qofka bini'aadanka ahi marayaa maraaxil kala duwan iyo tabaqaad uu marba mid uga gudbayo tan kale. qofka bini'aadanka ahi noloshiisu waxa ay ka bilaabmaysaa labiyo dhadig isu tegay si kalgacal leh ayaa Rabbi subxaanahu wa tacaala ayuu u abuurayaa. kadib waxa uu gelayaa 3 mugdi gudahood, halkaas ayuu ku jirayaa 4 bilood oo u horeysa. 40 cisho u horeysa waxa uu noqonayaa dhibic ama nutfa, 40 ku xiga waxa uu noqonayaa xinjir, 40 ku xigana waxa uu noqonayaa waslad hiliba. marka kadib markuu 120 habeen caloosha hooyadii ku jira ama 4 bilood ayaa malag loo soo dirayaa. malagaas ayaa ruuxda ku afuufaya, wuxuuna qorayaa ayaamaha yar ee adduunka joogayo, qadartiisa khayr iyo shar waxa ay tahay, garanaysaa inuu noqon doono mid saciida iyo waliba risqigiisa. 9 bilood kadib wado cidhiidhi ayaa la soo mirinayaa, kun waasaca oo qurux badan ayaa la keenayaa, iyadoo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu horay ugu sameeyay indho iyo qalbi iyo maskax iyo gacmo iyo lugo uu koonka kula qabsan doono. kadib muddo markuu daciif ahaado uu tifli ama uu ku jiro sinu tufuula uu gurguurto, ciyaaro, kaco, kuray noqdo, 10 sano gaaro, waxbarasho bilaabo, 15 sano gaaro, qaangaaro, shabaab uu noqdo. muddo kadib markuu waxbarto uu shaqaysto, guursado, 30 sano, 40 sano, hanti badan tabco, garaad iyo caqli iyo cudud buu Rabbi subxaanahu wa tacaala u koriyo. isna markuu 50 sano gaaro dib ayuu u noqonayaa, wuxuuna u noqonayaa jirkiisa oo dhan inay dabcaan, lafihiisu jilcaan, muruqiisu uu dabco, timihiisu cadaadaan, madaxu uu ka biibo, dubku uu soo tuuqsamo. ayaama yar kadib sariirta ayuu laasimayaa, sidaasuna adduunka kaga rawaxayaa. noloshan aan ka sheekaynay ee silsilada ah ee aad aragtay maraaxisha iyo nooca ay tahay, oo aad u jeedid aakhirkeedu sidii bilowgii daciifnimada ay u ahayd ay dib ugu noqon doonto, waxaa isweydiin mudan maxay tahay xaqiiqada noloshani. noloshan xaqiiqadeedu waxa weeye sida adiguba garanaysid inaad ayaamaha yara adduunka joogtid aad ka sahay qaadatid si berri markaad aakhire tagtid aad janno u gashid. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa wattaquuni yaa ulil albaab. war soo sahay qaata, sahay la soo qaato waxa ugu wanaagsan alla ka cabsi. maalin ayaynu la kulmi doonaa Rabbi subxaanahu wa tacaala inagoo sidaynu u dhalanay oo kale ah, markaasuu ina xisaabin isagoon wax dulmi ah inoo geysan, qof kastana camalkiisa uu ku sababsan doono janno ama naar. haddaba sii sahay qaado, safarku waa u dheer yahay, una diyaar garow la kulanka boqorka weyn ee aan wax la nooci jirin. allahu akbar.